السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. داوديال صاحبيال سو dhawaad waa muuqaal cusub iyo telefishinkeena Arda Cable TV oo maanta aynu ku falanqeyn doono kulamada ugu waaweyn horyaalka Premier League ama guud ahaanba xaaladaha horyaalka Premier League iyo maanta muuqaalka waxay la daadihinayaa Ibrahim Maxamed Aadan oo loo yaqaano Arka ayaa muuqaalkan maanta ila jooga. Ibrahim ku soo dhawaad barnaamijka. waan dhawaad barnaamijka Cabdiraxmaan aad u mahadsan tahay. adaa mudan walaal arka waxaan dhihi karaynaa imka horyaalka Premier League kooxda Arsenal oo muddo badan hogaaminaysay ilaa iyo kulankii koowaad ilaa iyo imka waxaan dhihi karaynaa horyaalkii waa laga wareegay kadib markii Manchester City ay ka guuleysatay. Ma jirtaa wax chance ah Arsenal ay ku soo noqon karayso oo dib ula wareegi karto ama ula wareegi karto hogaanka horyaalka Premier League? horta gaaladu waxay dhahaan it is not over until it is really over. ma fahantay macnaha mar walba oo macnaha kulamo ay dhiman yihiin kulamada dhimanna mathematically ahaan Arsenal horyaalka dib hogaankiisa dib u qaban karto macnaha suurtagalnimo way jirtaa markii dhankaas laga fiiriyo, laakiin aniga ahaan hadaa ay leeyahay ma kula tahay inay Arsenal soo noqonayso jawaabteedu way fududahay waa maya. sidaarteed waxaan dhihi karaynaa ra'yi ahaantaada imika Ma City oo loo sii saadaalin karaa hanashada horyaalka miyaa? already Manchester City horyaalka way qaaday waliba si dhib yar ay ku qaadi doontaa. laakiin arka hadeenu imka Arsenal xaaladana eegno sanadihii ugu dambeeyay horyaalka Champions League way ka maqnaayeen oo may ciyaareen tartankaas. sanadkan maanta 100% way xaqiiqsanayeen sanadka dambe ay ciyaari doonaan, laakiin horyaalka kuma guuleysan karayaan. haddii Arsenal horyaalka ku guuleysan weydo xil ciyaareedkan wuxuu noqonayaa xil ciyaareed fashil ah mise wuxuu noqonayaa xil ciyaareed successful ah maadaama ay isku soo xaadiriyaan ama ay soo gaareen Champions League oo ahaa hadafkooda ugu weyn iyo hankooda ugu weyn. وسؤال هرت آد وفي عن وقت الحاضر كان أنا قاعد عن أرسنال فان هاي ما عرفته. وقت الحاضر كان سيد وحيين واني جب سنة الله مركروت لقى هذا محايلي وحاوجه هاي إن كل اللي صومرتي محل ده possibility هريال كوكو قاعد كرتو واللي هو جانك يكون يريسن كرتي، لكن overall وحاجرت قفل بأرسنال تاجيرة وحياتها هاي إنه إسكو سبرسي تاسو in Champions League inay u soo baxaan hadafkoodii koowaad uu ahaa waliba taasna ay xaqiiqsadeen horyaalka kulamo badan uu ka dhiman yahay. marka Arsenal hadafkeedii waa ay gaartay oo caadi ahaan seasonkoodii uu guuleystay waliba si 100% ah, laakiin nolosha waxay tahay taqaanaa waa iska hami socda. haddii adigoo hadaf dhigtay hadafkaaga mid ka weyn inaa gaari kartid aragta ama jaanis uu ku soo maray mar walba hadafkaagii hore adoo gaaray haddana waxaad dareemaysaa possibility-ga hadafkaas kale ku gaari kartay inaad dayacday macnaha. marka Arsenal season ahaan way guuleysteen laakiin niyad meesha kama marnaan doono. صح Arsenal nabay filayeen inay heerka soo gaari doonaan ama ay soo gali karaan yani conversation-ka yani hogaanka horyaalka ama ku guuleysiga sanadii ugu dambeeyay Man City iyo Liverpool ay ku tartami jiray. sanadkan haddii ay ku guuleyso waayaan oo City ay ku guuleysato Arsenal waxay noqon doontaa niyad jab weyn oo aad bay ugu dhawaadeen xilli ciyaareedda marka laga yaabeen ka soo tago waayaan. sidoo waxay noqon doontaa dhiirigelin in ay sanadaha dambe soo adkeeyaan oo wixii ka dhiman ay iska soo buuxiyaan. aniga hadda arka ahaan su'aasha intaan toos uga jawaabin waxaan ku noqonayaa cidrid horta Arsenal inay kaalinta afraad soo galayso aad loogu kala qaybsanaa ma fahantay macnaha wuxuu iska ahaa Janis 50-50 ah inay afarta sare ka mid noqonayso. marka Arsenal inay kaalinta afarta sare ku dhameysatay waliba si style ah kaalinta labaad ee ku soo gashay waa wax ay tahay inay dhiirigelin ka qaadan. hadda aniga arka ahaan horyaalka markii asaadaalinay markii horyaalka bilaabanayay Arsenal kuma aysan jirin afarta kooxood ee aan soo xushay inay u soo bixi doonaan Champions League. marka Arsenal season-koodii already ani ahaan waxaan qabaa inuu super hit yahay, laakiin waa ay jirtaa macquulnimo uu sidan kaga fiicnaan karay taasoo oo kulamada hadda soo socda waxoogaa waxa laga yaabaa inay dhabar jab ku noqoto, laakiin si guud xil ciyaareed qurux badan ay qaateen. waa xil ciyaareed mudan in Arsenal loo wada sacabtumo ayagana ee hore dusha isaga siriixan. waxaa ku fahmi kartaa Arteta wuxuu ka mid noqon doonaa macallimiinta ku tartami doonta macallimiinta ugu fiican Sako kale iyo Odegaard waxaa loo badinayaa inay noqonayaan ciyaaryahanada ugu fiican kuwa u tartami doona. marka Arsenal si guud season-koodii wuu guuleystay waxa ay sameeyeenna waa waxay tahay inay dhiirigelin ka qaadaan. wixii ku dhacayna Manchester City oo kale waa inay tusaale ka dhigtaan. Manchester City waa kooxda ay tahay hadda koox walba Premier League ah inay tusaale ka dhigaan sida Newcastle oo kale hadda oo lacag badan haysata waa kooxda ay tahay inay hooskeedii raacdo. haddii macnaha ay rabto mustaqbalka fog inay guulo gaarto waa inay City kaga dayato qaabka loo abaabulay qaabkay wax ugu socdaan iyo wax walba. marka Arsenal
haddii su-aashaada jawaabteeda aan si kooban ugu jawaabo Arsenal xil ciyaareedkeedii wuxuu noqonayaa mid ay isku dhiirigeliyaan laakiin ani ma qabo inuu noqon doono mid ay ka niyad jabaan marka yani waxay ku xiran tahay in ciyaartooydu mentally ahaan sida uga soo kaban karaan yani horyaalka markii ay waayeen weli chance ay jira ay ku soo noqon karaan laakiin waxay u badan tahay in horyaalkaasi galbaday oo ay la wareegtay koox Manchester ay ku guuleysan doonto laakiin mentally ahaan ciyaartooyada Kasako kale Odegaard Martinelli Magalhaes Saliba Ramsey ciyaartooy badan oo daayira baa jira oo mentality ahaan yani aan hore oo soo arag yani horyaalka kale ku dhawaadaan ama laga guuleysto sidoo kale loogaga adkaado marka waxay ku xirantay mentally sidoo uga soo kaban karaan haddii ay mentally strong yihiin oo Arteta ka shaqeeyo arrinta way ka soo kaban karayaan sanadka dambana wax laga yaabaa inay mar kale u tartamaan iyagoo soo adkeeyay haddii ay mentally weak yihiin oo xagga maskaxaantana ay aad u jircsan yihiin waxa la filayaa in ay aad iyo aad uga niyad jabi doonaan haddii uu nimaadno dhanka toforka Manchester United iyo Newcastle si boqolkiiba 9 waxa xaqsadeen kaalmahooda gaar ahaan Newcastle oo yani gool badan fardhinaysa kulankii Tottenham oo kale xitaa kulankii ugu dambeeyay Everton oo kale ma dhihi karayna Manchester United iyada shaki ayaa ku jira in ay toforka ay seegi doonaan horta qofka mar walba uusan hamigiisi boqolkiiba boqol gaarin waxaa jira possibility ah inuusan hamigaas gaari doonin haddii lagu dhahay 95% Newcastle iyo Manchester United macnaha tofor way ay xaqiiqsadeen waxaa jirta sabab looga reebay shanta dhiman marka Manchester United iyo Newcastle ani waxa aaminsanahay in tofor ay ku dhameysan doonaan haday dhahdo maanta saadaali waxa aaminsanahay inay yihiin labada koox ee Arsenal iyo sidii u raaci doona Champions League laakiin mar walba waxaa jira macquul ahaansho ee ku weyn karaan waayo mathematically ahaan weli waa macquul inay waayaan oo Brighton Liverpool Tottenham waxa dhan ka soo qayb gali kara laakiin ma tahay Manchester United yani ma la dhihi karaa way weyn doontaa waa maya